ma ogtahay in John Wick uu dilay qaybtii koowaad 77 qofood, qaybtii labaadna uu dilay 128 qofood, qaybtii saddexaadna uu dilay 94 qof. shirkadda soo saartay filimka John Wick ayaa sheegtay jilaaga Keanu Reeves inuu dilay 299 qofood saddexda qaybood ee taxanahan. ma ogtahay in Michael Jackson uu isku dayay inuu iibsado Marvel si uu u matalo Spider-Man? ma ogtahay jilaaga Keanu Reeves inuu diiday dhowr qandaraas oo qaali ah kuwaasoo kaga imaaday dhanka shirkadda Marvel, laakiin la yaabka ayaa ah inuusan diidin codsiga ka qayb qaadashada filimka SpongeBob. ma ogtahay Keanu Reeves in lagu siiyey kelimad kasto John Wick qaybtiisa afraad lacag dhan $40,000 Mareykanka ah. wadarta guud ee kelimaadka filimka John Wick qaybtiisa afraad ayaa lagu sheegay inay tahay 380 kelimadood. ma ogtahay taajka boqortooyada Ingiriiska inuu ka kooban yahay 23,578 dhagax oo qaali ah. dhagaxyadaasi oo la aroorinayay 800 oo sano, kuwaasoo kulligooda ay soo xadeen boqortooyada Ingiriiska. waliba dalalka ay ka soo xadeen dhagaxyadaasi qaaliga ah oo ku jiro dalkeena Soomaaliya. ma ogtahay Jeff Bezos saacadiisa Giant Watch qiimaheedu inuu gaarayo $42 milyan Mareykanka ah, waxaana loogu talagalay inay shaqeyso saacadaasi 10,000 oo sano oo aan joogsanaynin xitaa sikin. ma ogtahay Cristiano Ronaldo inuu u qaato mushaar ahaan sikinkii $6.34, daqiiqadiina uu qaato $380, saacadiina uu qaato $22,833, maalintiina uu qaato $548,000, bishiina uu qaato $16.6 milyan, sanadkiina uu qaato $200 milyan. ma ogtahay Axmed Suraaji kaasoo loogu yeeray saaxirkii wuxuu dilay 42 haween iyo gabdho. wuxuu u dhashay dalka Indonesia, wuxuuna qirtay inuu ceejiyey dadkii uu dilay, wuxuuna ku aasay beertii sonkorta iyadoo madaxyadooda ay u sii jeedaan gurigiisa, sababtoo ah wuxuu aaminsanaa inay taasi siin doonto isaga awood. waxaana lagu xukumay dil, waxaana xukunka lagu fuliyey 2008. ma ogtahay laacibka Lionel Messi intii lagu guda jiray sagootinta Barcelona uu isticmaalay mandiil si uu ilmadiisa ugu tirtiro. mandiilkaas ayaa qiimihiisa gaaray lacag aad u badan, taasoo lagu sheegay $1 milyan Mareykanka ah. ma ogtahay George Stein inuu ahaa qofkii ugu da'da yaraa ee la dilo, isagoo 14 sano jir ah. George ayaa lagu helay dembi ah inuu dilay 2 gabdhood oo lagu kala magacaabi jiray Betty John oo jirta 11 sano iyo Mary Emma oo jirta 8 sano, kuwaas oo laga helay god iyagoo meyd ah. waxay lahaayeen raad jabniin ah oo aad u daran, qaasatan dhanka madaxooda ah. George ayaa qirtay dembiga. ugu dambeyn George waxaa lagu xukumay dilka kursiga korontada ah. ma ogtahay dagaalkii labaad ee adduunku uu ahaa dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda soo mara? ma ogtahay in bamkii ugu horeeyey otomaatikada ah ee dagaalkii labaad ee adduunku uu sameeyey Mareykanka? bamkan ayaa lagu tuuray magaalada Hiroshima ee dalka Japan. ma ogtahay in Bill Gates uu bilaabay barnaamijyada kombiyuutarada isagoo 13 sano jir ah? ma ogtahay Mark aasaasaha Facebook uu yahay samafalihii ugu weynaa ee Ameerika 2013 wuxuu ugu deeqay $1 bilyan hay-adaha samafalka? ma ogtahay Tommaso oo ah bisad Talyaani ah inay u heshay dhaxal ahaan $13 milyan. Maria Assunta ayaa dhaxalkeeda ku qortay Tommaso. sidoo kale ma ogtahay Penn Wright inuu dhaxalkiisa siiyey Blackie oo ah bisad $12.5 milyan, waana mid ka mid ah bisadaha ugu taajirsan adduunka. Blackie ma ogtahay filimka argagaxa leh ee caanka ah The Hills Have Eyes waxa uu ku salaysan yahay qiso dhab ah oo ka dhacday Scotland. qoys lagu magacaabo The Bean Family oo ku noolaa godadkaasoo ay ku dili jireen dadka, sidoo kalena ay ku cuni jireen dalxiisayaasha iyo dadka safarka ah, iyadoo tirada dadka ay dileen ay gaartay 1,000 qof muddo u dhaxaysa 26 sano. mar ay damceen inay qabtaan mid ka mid ah dalxiisayaasha deegaanka oo xirfad u leh isdifaacida, ayaa waxaa u suurta gashay inuu ka baxsado, wuxuuna gaaray xero ciidan oo 50 kilomitir u jirta. dhammaantood ayaa la soo qabtay waana la xiray, kadibna waa la wada toogtay. ma ogtahay Tom Cruise inuu dhammaysan waxbarashadiisa oo uu ka soo shaqeeyay shaqada iibiyey wargeysyada ah uuna ku guuldaraystay, sidoo kalena inuu noqdo xirfadle legdinta ah, laakiin uma suurtagelin. wuxuuna aaday Hollywoodka oo uusan guulo badan ka gaarin maalmihiisii ugu horeeyey, laakiin hadda waa xidig milyaneer ah, wuxuuna u qaataa mushaar ahaan $50 milyan. lacagtu uu hadda haystaana waxay gaaraysaa $620 milyan. waa inaad noqotaa qof samir leh si aad u samaysato nolosha aad rabto.